waxaa si rasmiya degmada Shiikh uga bilaabmay olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda degmada. Ololahan nadaafadeed oo ay hormuud ka yihiin maayarka degmada Shiikh iyo maayar ku-xigeenka degmada iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Shiikh. Ugu horreyna waxaa halkaasi kula hadlay warbaahinta qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka degmada Shiikh iyo sidoo kale xubno ka mid ah golayaasha deegaanka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta qiimaha badan la isku soo baxay maxay tahay ururinta xashiishka degmada Shiikh nagu sugay. Ilaahay baa mahad leh. mar labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada Shiikh, maayarka iyo maayar ku-xigeenka oo maxay tahay arrintan abaabulkeeda iyo qorsheynteeda iyo korfeynteeda iyo maxay tahay wacyigelinteedaba lahaa. aad baan ugu mahad celinayaa. run ahaantii maanta hal midun baan odhanayaa, halka midna waxaan dhahayaa dhalinyarada degmada Shiikh. waxaan leeyahay dhalinyarada degmada Shiikh in badan bay lahaydeen maamul baa nala shaqayn waayay iyo waxa nala shaqayn waayay dawlad baa nala shaqayn weeday. maanta baa wada aragtaa maamulna garab taagan oo ina hareero taagan baynu haysanaa. waxaynu u baahannahay in gacmaha isqabsano si aynu helno Shiikh oo kaniina oo green ah. maanta oo ay taariikhdu tahay bishii 7/8/2021 waxa olole ballaaran oo lagu xidhib tirayo xashiishka iyo qashinka degmada Shiikh qaaday maamulka dawladda hoose oo uu hogaaminayo maayarka cusub Ismaaciil Cali Xuseen uu hogaaminayo dhammaan shaqaalaha iyo dadweynaha iyo bulshada hareeraheeda ku gadaamanaya gudaheeduba way ka qayb galeen. inta markan ka gudbo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo golihiisa deegaanka waxay ku soo bandhigeen magaalada oo ay geliyeen dhiig cusub iyo karti iyo waxqabad hor leh. waa karti iyo waxqabad la taaban karo. aqliga saliimka iyo qofka maskaxda fayow qaba waa wuxuu yacniga ku taageeri karo 100 jeer 1000 jeer 2000 oo jeer uu ku hambalyeyn karo golaha deegaanka cusub iyo hoggaankoodaba. maanta sharaf weyn bay noo tahay annagoo ah dhalinyartii degmada Shiikh inaan degmadeedii maanta u kacno oo ka shaqeyno runtii golahan cusub ee soo baxayna runtii maanta iyaguna diyaar bay u yihiin inay qaybtooda qaataan qorshaha ururkan horumarinta bilicda degmada Shiikh waxa uu qorsheysan nadaafadda inay muddo isbuuca ka shaqeyso oo maanta ay ka bilowday isbitaalka degmada Shiikh. salaan waxa xusud mudan maamulka degmada cusub ee Shiikh ugu horeeyo maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo golihiisa deegaanka. anagu ka dhalinyar ahaan anoo ku hadlaynaa ururkayga la yiraahdo bilicda Shiikh waa bilowga guusha oo aan ujeedo kaliya taw soconno oo ah inaanu berber istaagno heel iyo hoob la berber istaagno maamulkayga cusub. macnaheedu taano ma ahan maamulku kaliya la berber istaagnay. waxaan rajaynayaa in dhig cusub shubno hadii Ilaahay naftina u daayo oo Shiikh tan ka fiican oo meel kasta indhaha Soomaaliland iyo caalamka soo jiitaa ma rajaynaa. waan hambaleynayaa horta maamulkan cusub iyo golaha deegaanka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka xogayaha iyo dhammaan howlwadeennada dawladda hoose. kale waxay muuqdaan aniga abaabul iyo dad doonaya in la horgalo oo laga shaqaysiiyo. anigu hadalka badan ma laakiin waxaan baan leeyahay maamulka waxaan soo jeedinayaa dadka wada aragtaan oo tijaabadii ugu horeysay maanta ayay ka baxeen. ujeedaduna wax kale maaha, waxa weeye dadku waxay u baahan yihiin wax horgala. raxiim halkan horta waxaan uga mahad celinaynaa ururada maxalliga ah ee arrimaha bulshada degmada Shiikh sida ururka halkan wada waa 3 urur Soodso iyo ururkan iyo urur kale. 3daa urur oo si wacan xashiishka maanta noola abaabulay noola guray. annaguna waxaanu insha Allah bismillaahi kariim aanu leenahay dadweynaha ku nool degmada Shiikh waxaanu doonaynaa inaanu maanta kaga dhabayno degmadu waa degmadeennii. dhalinyaradan sabaabushay iskeeda isku xaqaantay maanta waa maalin weyn, waa maalin aanu dhammaantayo gacmo haysanno ka qayb qaadanayno maxay ololaha nadaafadinta degmada Shiikh. bismillaah anigu farintan diraya waxa weeye maadaama dumarku yihiin kuwa ugu badan qashinka quba inay iyagu qashinka habeeyaan meelo ku munaasaba ay dhigaan aanay ku daadin ku daafadihii iyo dhulkii hore ay dhigi jireen si maxay lahday dawladda hoosena ay uga fududaateen qashinka naga qaadaan. mar walba waxay dhahdaan ma helo iskarogooyin amba wax kale qashinka naga qaado. maantaba waa diyaar maxay lahday qashinkiina waa loo soo jeestay waa la qaadaya. ugu dambeyntiina waxaa hadallada iska daba qaatay maayarka iyo maayar ku-xigeenka degmada Shiikh oo ku dheeraaday ahmiyadda ay degmada u leedahay hagaajinta iyo in laga qayb qaato bilicda degmada Shiikh, ahmiyadda ay u leedahay bulshada, waxaanay tilmaameen
aad iyo aad bay mahadsan yihiin xubnaha iga horreeyay runtii intaynan kelmad kale odhan waxa aad iyo aad aynu ugu mahad celinaynaa oo mudan in loo mahad celiyo dhalinyarta kala duwan ururada haweenka iyo dhammaan bulsho weynta isugu soo baxday saaka ballanteennii khamiista ahayd 8 bisha ee aynu ku ballansanayn inaynu ballanqaadkeennii aynu afka ka nidhi fulin u bedelo oo ahaa inaynu bilowno maalintii nadaafadda sidaynu horeba u sheegnay insha Allah wixii noo socon doona ololahani haddii Ilaahay yiraahdo intaynu tirtirayno ee aynu sheekh elimination ku samaynayno ama cadhibtir ee aynu waayayno habad xashiisha oo taala guryaheena horteeda ama laamigeena maanta oo ay tahay 8 bisha 7 waa maalintii aan u aastaynay inuu bilaamo ololaha sanitation-ka ee degmada Sheekh maanta baara 7 subaxnimo ayuu Sheekh ka bilaamay guud ahaan runtii waxay dadweynaha reer Sheekh ay muujiyeen inay diyaar u yihiin waxqabad waxay muujiyeen inay yihiin dad bisil waxay muujiyeen inay yihiin dad muwaadiniina waxay muujiyeen dad u baahan cid horgasha waxay muujiyeen wax kasta oo bulsho u baahan waxqabad ay ku sifoobi lahayd runtii ololahan aan bilownay wuxuu socon doonaa haddii Ilaahay ka dhigo 20 cisho ومصطفى أحمد سمكاب وكالة عالمية سمكاب 47 ميديا جروب مقالة هرقيسة